أي آيات صوصعت أيو إلهي وحو إن بريا هدي الله كدقو إن هدي الله يلاحظو صبرك أينو كو صبر إنو قدركو إنو إنك دنتين يهي وحن كوضا هدي شيء كو أصيبه وحد باتي سنة ساعي كو أصيبته وحو إلهي إنو أغوى الرمية هل كن قلم باشقا حق إلهي قف والبنا وحي لمارين أيوه دبي الدف ومكتوب لوح المحفوظ كو قرية انت لقوا أؤمن باوحي دباتك قد عيا إلهي إيا واحد خير هي ليس من ربي تبارك وتعالى وسيقر شيء كروح مسلم كأوحى للي هي أيامها قاركوت هدي أديك بلايدو كل سود دريستو إلا إن دتك كلا أكل يلا مرة لم بلايدو أنت أديك كام مقنتاي وجو أساق قام بيكون مقنتاي maalinta meertadeedu adiga ku soo gaadho waxa Ilaahay ku leeyahay tabaaraka wa taala hasal babixino ha argagixino ha walwaalanina adduunyadu sidaas qoriisu dhiib u ahayd oo maalinba qofba hadii Allah yiraahdo balaayadu ay ag joogtay haday adiga maalintaadii kugu soo beegantay catawga iyo argagaxa iska ilaali laba shay waad khasaari hadii qadarka Ilaahay aad ku qanci weydo أجركي حسناتك أدكيه ليسي مصائب توريجيسا تاسوا دواي مستقبل كصوص عدنا يتشبع كقول عيو أيانتا ما أنت كصو مرتي أيا ولي جيد بكقول تاجنان دون تولا عيدو وحلقة يابا إن أملك يقرشيه إذا ديلدو بكارد انتان أو ددهرتي بعد لما تصدي عقال شداد عرهرتي تبع ترى marka Ilaahay wuxuu ku leeyahay tabaaraka wa taala ayaamaha adduunyadu waa meerto sabir yeelo oo naftaada waxaad bartaa maalintay adiga kugu soo beeganto inaad dabinta qaniinto oo aad hore u socoto aanad halka ku dambe maxaan ku rahdaa ku basin waxa dhacda qofka mu'minka markay dhibaato ku timaado wuxuu yiraahdaa قدر الله ما شاء فعل سيدنا إلهي با قرشيي وحو إلهي قرشينا ويدعان إنا لله وإنا إليه راجعون ساسير هذا المسلمين وردي قاسي ووردي آدي قيمة بضن إنا لله وإنا إليه راجعون قلبي قيد ويسا كالمداس أمرو قدا يورورك أيام الصحراء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون هم المهتدون هم المفلحون وإيه مركا أيامها مصائبه ووحيال إلهي بن آدم وكو امتحامه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولقى أنت النوش هاي أيامه ولقود بكوما وذا سمانيان أيام با وحوغا كوغو أتكان إيسا لكن waxaad kaga talaabaysaa dhibteeda inaad sabirto oo aad yaqiinsato qadar Ilaahay inuu dhacay hadii laakiin aad qaadan weydo qadarkii iyo qaybtii Ilaahay kugu soo aadiyay Ilaahayna waxba kaga qaadi maysid adiguna waad ku baabi'uun oo gaaladu ma laha iyagu kansiga iyo qasnada aan ka dhamaanaynin ee ay kaga gudbayaan masaa'ibaha adduunyada waxa la iga sheekeeyay maalmaha kamid ah 3 nin oo gaala ah oo gaari wada saaraa ayaa gaarigii la gadoomay markuu gaarigii la gadoomay hal nin oo 3dii kamid ah waa gacani jabtay labadii kalena xagtinimo gaadhin ninkii gacantu jabtay wuu rumaysan wuu qaadan waayay wuxuu mar walba dadkii ku leeyahay waay gaariga waan wada saarayn oo nala wada qallimay way bay aniga gacantu ii jabtay iyagana ay u jabi weyday waxay aniga gacantu ii jabtay marka wuxuu yiri waan garanayaa waxay aniga ii jabtay anigu waxaan ahay mid liito maxaan ku ra'aan istaahilin inuu noolaadaba maadaama 3dii aan ku wada soconay aniga kaliya ay target garaysatay balaayadu wax xun baan ahay
gacantii jabtay waxay kaliftay baa la igu yidhi in istoogtaba gebigiisa gacan baa jabtay la kabi karo noloshii kaloo dhan buu isdhaafiyey laakiin qofka muslimka ahi wuxuu haystaa qadar allah maa shaa facal inna lilah wa inna ilayhi raajicuun weliba masiibadu markay kugu dhacdo ajriga laga helaa waxa weeye jugta ugu horraysaa markay kugu dhacdo jawaabtaad ka bixiso الصبر عند صدمة الأولى صبرك وحو قرما أجري يشاء جugta ugu horraysa laakiin markay kugu dhacdo haddaad catowdood oydood marada jeexjeexdo oo haddii alla yidhaahdo ayaama isqadiso ood ciidda isku rogto oo aad caawoo dhan oydo hadda ogow oo dhibaatadii kugu dhacday iyo geeridii kugu dhacday qofkii kaa dhintay dib u soo noqon maayo ajrigii iyo xasanaadkiina waad weyday abaalmarin ilaahay xaggiisa ka heli mayse waxaad weyday khayr aad u badanoo rasuulkeennu ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi acmaasha addoonkaygu sameeyo waxaa ugu khayr badan sabirka waxyaalaha ilaahay lagula xidhiidho oo ajriga lagaga helo waxaa ugu horreeya ugu badan waa sabirka oo ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab acmaasha kale oo dhan halbeeg lagu qiimeeyo ayuu ilaahay u sameeyey laakiin sabirku isagu qiyaasba male sabirku waa shayga ugu qiimaha badan ee ilaahay addoommihiisa uu darajooyinkooda kor ugu soo qaado marka ilaahay wuxuu ina barayaa hadday masiiba dhacdo sideen u qaabilaynaa wuxuu ilaahay inooga warramayaa adduunyadan in ilaahay ugu talagalay in bini aadmiga shar iyo khayrba lagu imtixaamo jawaabta qofku uu ka bixiyana darajadiisu ay noqoto tii baa ilaahay inooga warramayaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay yidhi maa asaaba ma dhacdo min musiibatin ay musiibatun wax uun balaayihi ma dhacdo ruux ma asiibto ilaa hadday balaayo dhacdase biidni illaahi amar ilaahay bay daba socotaa idan amallay ku dhacdaa waman yu'min billaahi ruuxii alla rumeeya yahdi qalbahu ilaahay qalbigiisa ayuu ku beegaa uu ku hanuuniyaa alsabra waalyaqiin sabirka maxaa lagu helaa iimaan horta marka hore inaad mu'min tahay qofka aan mu'minka ahayni ma haleelo sabirka masiibahana uma adkaysan karo sida kaa aan idinka warramaya gacan jabtay isu dilay ma helin in sabir lagu hanuuniyo marka ilaahay wuxuu leeyahay aliimaan iyo yaqiinta ilaahay aad rumaysan tahay baa asal u ah inaad adduunyadan rafaadkeeda iyo dhibteeda iyo ayaamaha adag inaad u sabri karto marka ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waman yu'min billaahi ruuxii rumeeye ilaahay ee mu'min ah yahdi qalbahu ilaahay qalbigiisuu solansiinayaa alsabra waalyaqiin wallaahu ilaahay bikulli shayin caliim shay kasta ilaahay wuu u cilmi leeyahay